Bismillah, alxamdulilah, ilaah mahad iskale walaalayaal meel walba oo joogtaan soo dhawaada. Insha allahu waxaan ka bilaabeynaa casharkeenii labaad. Intaa gudaha u galeen casharka waxaan rabaa oo inaan xoogaa dadka qaar ka jaahil bixiya aan rabaa. Buugga kan ee basic aan aqrinayo qofkii u baahan insha allahu ha ila soo xiriira waan sii doonaa. Haddii alle idmu heli doonaa sida ugu fudud iyo insha allahu ku heli doonaa. Waxaan igala soo xiriiri kartaa nambarkaas oo 825 marka nambarka igala soo xiriir insha allahu 8 insha allahu buugga marka wax badan oo basic ahna waa ka fahmi doontaan insha allahu waana ku mahadsantiin insha allahu muuqaalkan insha allahu like saara. waayo waxaan ka bilaabeynaa the chromosome aan ka bilaabeynaa chromosome. It is a combination of two words. waa maxay? waa laba eray oo la jamciyo ayuu ka imaaday chromosome. labada eray chromosome waxaan uga hadlaynaa waayo genetic ma dhaco ilaa wuxuu u baahan yahay chromosomyada ay ku dhex jiraan geneticska hindisidayaasha geniska ku dhex jiro chromosomeska ayaa sameeya ama ay ka samaysmaanba. saa darteed marka chromosome inaan wax ka ogaano saa darteedaan marka chromosome meesha u keenay. waayo marka ie waxaa loola jeedaa chroma mean waxaa loola jeedaa color, anasam waxaa loola jeedaa body walax. marka waxaa waaye walaxda colorka leho. markaan warkeeda aan jilcina chromosome wuxuu ka imaaday laba eray oo kale ah chroma iyo somis. chroma oo loola jeedo color iyo somis oo loola jeedo body oo loola jeedo waayahay saa darteeda iyaga color thread waa macnaha dun kalaraysan oo markaa firiso laag sida bodies walaxda oo kale ah taasoo present laga helo in the nucleoplasm. waxaa laga helaa nucleoplasm waa maxay? bu'da of the living cells. waa maxay? of the living cells waxaa loola jeedaa unugyada noolayaasha witaasoo helbis ka caawinaysa in the inheritance. waa maxay? inay iska dhaxlaan transmission qaab baahid ah of a characteristics. waa maxay? sifooyinka in form of genes qaab hindisidayaal ah iyagoo u sameynaya. in form of genes waxaa loola jeedaa qaab hindisidayaal ah ay markaasi u samaysmayaan ay sameynayaan macnaha markay samaysmayaan. waayahay genes waxaa loo yaqaana hindiside waana arki doonaa tacriifkiisu. waan arki doonaa waxa lagu qeexi doono genes from generation iyadoo laga keenayo jiil to generation waxaan la aadinayaa jiil kale are known as kaas waxaa loo yaqaanaa chromosomes. define chromosomes qeex haduu dhaha intaana kusoo koobaysi kartaa. waxaan leenahay chromosomes markaan qeexayno is the inheritance waa dhaxal the inheritance waa dhaxal of character. inheritance maxaa waaye? transmission dhaxalkaas wax la baahinayo macnaha of characteristics sifooyin ah in the form of genes iyagoo u samaysmaya qaab hindisidayaal ah from. waa maxay? waxay ka imaanayaan generation jiil ay ka imaanayaan to generation. waa maxay? jiil kale ayna aadayaan kuwaasa are known as waxaa loo yaqaanaa chromosomes. you can also define waxaad ku qeexi kartaa sidaan soo socoto is the nucleus bu'da. chromosome waxaa kaloo qeexi kartaa is the nucleus bu'da of a cell ee unugo has a number wuxuu leeyahay a number tiro of long thread like structure. markaa firiso qaabkooda uu yahay xirkaha oo kale uu yahay kuwaasoo kale loo yaqaano chromosome. sidaasna waa ku qeexi kartaa bu'da unuga wax ku dhex jiro oo sida dunta camal oo kale ah kaasoo tiro dhaadheer leh tiro badan leh oo tun dhaadheerna leh kaasa waxaa loo yaqaanaa chromosome. mar kale aan ku celiya waxaa loo yaqaanaa waa unuga bu'da ku jira kaasoo tiro leh sidoo kale xerka dhaadheer oo sida dunta oo kalena leh kaasa waxaa loo yaqaanaa chromosome loo yaqaanaa. each chromosome walba is made of wuxuu ka samaysan yahay two parallel laba shay oo parallel isbarbar socoto laba xerag two parallel strands laba xerkood isbarbar socoto parallel ah ayuu leeyahay kuwaasoo kale loo yaqaano chromatid. waa kuwana chromatid iyo chromosome can maxay ku kala duwan yihiin? chromatid waxaa lahaa xerkaha oo chromosomku ka samaysan yahay. chromosomekan waaba chromosomka qudhiisa oo waa wixii noo sameynayay hindisidayaasha noo sameynaya kaasoo marka waa inaad saas ogaataa. marka waa kuwana meeshan dhexda iskay dhagaan sawirka sidaa ka arkaysid xergan waa xerag kan waa xerag sooma meesha iska qabsadaana waxaa loo yaqaanaa centromer waxaa gudinta iskayga dhagaan waxaa loo yaqaanaa centromer loo yaqaanaa.
waa kana marka two chromatids laba xirkood ay ka sameeyeen two chromatids laba xargaan waa kana two chromatids ay ka sameeyeen waa each pair lamaana walba of chromatids xarkaasi is asiga connected waa maxay to at a one point wuxuu iska dhigan yahay bartaas markaa fiis qaabdhismeedkooda taasoo kor loo yaqaano centromer sida figureka 3.2 nagula tusi doono waana kaasa markaan fiirino qaabka waa marka sawirkan kala afiirso unug waa kana bu'din waa kaasa chromosome-kan halkaas yaala DNA-dana meeshaas idin tariilan DNA-da in the nucleus laga helaa waa ka marka chromosome-ku waa kana intuu ku dhex jira marka afiirso waxaa sidoo kale meesha agtiisa yaala bu'di ayaa taala DNA sidoo kale meesha ku samaystaa unug marka waa kuwaasa unug waxyaabaha ugu muhiimsan amaba uu ka samaysan waxaa ka mid ah shaqooyinkiisa aad iyo aad u kala wado waxaa ka mid ah chromosome-ka iyo DNA-da chromosome-ka iyo DNA-da ku dhex jiro bu'da ku dhex jiro ayaa ugu wacan marka inta ugu badan chromosome-yada waqti inta ugu badan waxaa laga helaa all the time waqtiyada inta ugu badan waxaa laga helaa bu'da laga helaa waaya chromosome-yada qudhooda waaya hadda noo sheegi doonaaba in a bad cells bad cells somatic cells unugyada macnaha somatic cells ee jirka ka samaysan yahay waa chromosome ayaa agka u dhaca in a beer qaab lamaanayaal kuwaas xataa qudhooda unugyada jirkan uu ka samaysan chromosome ay ka samaysan each beer lamaana walba of chromosomes ee chromosomahan kuwaan wuxuu leeyahay characteristic sifooyin uu leeyahay length xagga dhirka markaa fiiriso the number tirada of each bear ee lamaana walba iskool waxaa loo yaqaanaa homologous chromosome waxaa loo yaqaanaa chromosomyo isku mid oo wada socdo homologous marka la hayo kuwa wada socdo isku mid markaa fiiriso isku mid distani oo tan means waxaa loo jeedaa that the chromosomyada alike waa kuwa isku mid in appearance xagga muuqaalka although inkastoo their genetic composition ka samaysankooda xagga hindasidaha ayaa maybe waxay noqon kartaa different mid kala duwan markaad fiiriso chromosomyadu isku mid qaabkooda laakiin marka la homologous chromosome halkaa qaabkooda isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin hindasidayaasha ku dhex jiro jiinka ku dhex jiro ilanka jiinka wuxuu ku dhex jiraa chromosomyada ku dhex jiraa taas oo marka waa during inta lagu jiro sexual reproduction waa maxay sexual reproduction inta lagu jiro taranka jinsiga inta lagu jiro each parent waalid walba contributes wuxuu ku deeqaa one of the chromosomes mid kamid chromosomyadiisa of homologous pair ee lamaanayaal isla socda lamaanayaal marka la maxaa waay waan arki doonaa insha Allah haye waa yahay along the length dhirirka xirkaha uu leeyahay chromosome uu leeyahay is a series of taxano of structures qaab dhismeedyo waxaa ku jiro xirkiisa dunta camal u samaysan oo dhaadheer waxaa ku jiro taxanayaal aad u dhaadheer oo qaab dhismeedyo kuwaasoo kol loo yaqaano genes hindasidayaal loo yaqaano waayahay they are also soo kale too small aad iyo aad ay u yaryar yihiin to be seen in lagu arko even xitaa with a powerful microscope aad iyo aad u xoogan xataa in lagu arko way adag tahay goormaa la arkaa marka macalino waxaa la arkaa during inta lagu guda jiro cell division weliba cell divisionka marka uu dhacaayo marxaladihiisa koowaad marka uu dhacaayo ayaa la arkaa xaaladda interface-ka ayaa la arkaa waqtiyadaas ayaa inta badan la arkaa interface-ka marka chromosomeka waqtigaas haddii lagu fiiriyo waa la arkaa microscope haddii lagu fiiriyo waa la arkaa inta during cell division intuu socdo marka inta kale in la arko way adag tahay waa yahay haye it is asiga genes waa hindasidayaal weeyaan waxaa waaye chromosomeska is chromosomeka genes waa hindasidayaal ayaa ku dhex jira that hindasidayaashaas oo determine noo go-aamiya the characteristic sifooyinka of the cell unuga inoo go-aamiyaan and it is progeny iyo faraciisa meesha uu ka yimaaday noolahan ayay go-aamiyaan meesha uu ka yimaaday ay go-aamiyaan it is progeny iyo faraciisa all cells unugyada oo dhan kuwaasoo include ay ku jiraan gametes unugtrameedyada sperms iyo ova ugxaanta iyo spermada weeyaan contain waxay ka kooban yihiin definite constant number tira joogta oo cayiman ay leeyihiin of chromosomes ee chromosome
in each cell unug walba ayaa laga heli karaa for every species animal sinji walba oo noolayaasha ka tirsanna waa laga heli karaa or amasane balanti for example dhirta waa laga heli karaa or amasane balant dhirta waa laga heli karaa for example tusaale inuu human beings marka bini aadamka fiirino wuxuu leeyahay somatic cell ayuu contain somatic cell oo leeyahay somatic cell marka la waxa waay mitosis cell mitosis ayuu ku yimaado somatic cell somatic means body unugyo jireedyo ayuu leeyahay kuwaasoo contain ka kooban 46 chromosomes ka kooban 46 chromosome ka kooban 46 maxaa waay 23 ila 23 23 ka imaatay hooyadii ila 23 aabihii ka imaatay 23 marka waa iyada la kala qaadi doona form 3 ga biology-ga aad u dilci doona insha Allah aan ku faahfaahi doona markii Ilaahay una gaarsiiyo waa halka each gamete waa maxay each gamete hindasida walba gamete waa maxay unug tirameed walba contain gamete unug tirameed waa cafan waa halka each gamete unug tirameed walba contain wuxuu ka kooban yahay 23 chromosomes 23 chromosome ka kooban yahay chromosomyada warkaan si fiican fiirso waa kan bolli xataa kaaga dhigay 23 chromosome gamete walba maxaa loo jeedaa macna gamete waa unug tirameed waa isbeemada iyo ovumki isbeemada waxa 23 chromosome ovumkin waxa waaye 23 chromosome waa ka marka gamete marka la isaaso waaye saas loo jeedaa isbeemada 23 chromosome wadata ovumkin waxay wadataa 23 chromosome waa inaad saas ogaataan waayahay warkan boldan ku qor inaad aad ugu baraarugsanaataan rabaa chromosomyada are present waxa laga helaa in the nucleus bu'da ayaa laga helaa all the time waqtiyada oo dhan anta laga helaa chromosomeska bu'da ayaa laga helaa all the time waqtiyada oo dhan but laakiin they only appear way soo muuqan karaan kaliya or amasan become way noqon karaan visual ko la arki kara one markii fluid under microscope lagu fiiri waa goormay laakiin bishardi goorma lagu fiirina microscope during cell division inta lagu guda jiro qaybsamida unug tirameedyada cell division inta lagu guda jiro ayaa lagu fiirin karaa oo la arki karaa that is mitosis and meiosis markay dhacayso marxaladda mitosiska oo ah somatic cells markay dhacayaan iyo meiosis oo ah markay dhacayaan kuwa macnaha gameteska markay dhacayaan waaya waxaan halkaan idigu soo qoray marka xayawaanada ugu caansan dhirta iyo wiliba iyo xayawaanada ugu caansan chromosomyadooda ilaa hadda si fiican loo ogaaday ayaan halkaan idigu soo qulaasay jadwalkan kan waayahay bal wax ka ogaada bal waxa ugu horeeya weed oo qamadiga ayaa ugu horeeya qamadiga waa balant warsamaha dhirta waa somatic cellkiisa unugyadiisa caadiga waxa waay 14 waa somatic cellkiisa guud ahaan marka isku soo dardaro mitosiskiisa meiosis iyo meiosis kaliin mitosis somatic cell da maqashwa mitosiskiisa unugyadiisa unug jireedyadiisa gamete waa unug tirameedyadiisa meeqa waay 7 waa marka saasay noqonayaan guud ahaan gamete unug tire oo loola jeedo meiosis waa dhigi kartaa bedelka gamete meiosis waa ila meiosis ka gamete noqday maize galeyda 20 chromosome ay leedahay markaan fiirino 20kaas chromosome waa kan gamete maxay noqonaysaa 10 waxa sid mudan dhammaan inay leeyihiin tiro even number marka laga reebo hal xayawaan oo baqasha marka laga reebo inta kale even number ay leeyihiin waan arki doonaa sababta baqasha inuu qaweysay even number ay inuu qaweysay hay tubaakada ku xigta tubaakada waa balantiska kamid sama 12 chromosome oo somatic cellkeeda ay oo unug jireedkeeda waa 12 kuwa gametekeeda ahna waxa waay unug tirameedkeedana waxa waa 6 waaya sheep idaha waa 56 28 ay cow saca waa 60 fruit fly waxa waay tacsimaroole Soomaaliya saasay dhahan waa tacsiga dhirta inta badan cuno fruit oo dhirta miraha iyo soo kale fly oo tacsiga marka tacsiga inta badan cuna miraha waa tacsiga lagu sameeyay waaye tijaabada caalamiga buug hore aad u qoraayo u fafaahin jir muqarrarkii hore waa tacsiga lagu guuleystay waa modern genetics ay ku guuleysteen waa inay ka sameeyaan tijaabadan caalamiga ee geneticska taasoo aqbashay Mendel qaabkiisii sidoo kale cadeysayna wax sababa inay yihiin genes inay yihiin waayo waa soo wadnaa insha Allah Mendel wuxuu leeyahay
wax sababi waxa waaye gene wax sababi kara factor ayaa jira gene asimuusan aqoon uma lahayn oo waqtigaas muusan sheegin marka waxa loo ogaaday tacsigan kan ah fruit fly-ga waxa tacsigan loo ogaaday waa modern genetics laga xaqiijiyo sababtan waxa waaye noolaha ayuu ku characteristics yahay uu ku dabeecad yahay qaabka uu yahay asagana uu yahay characterka waxa ula jeedaa xagga macnaha male-ka marka noolaha afiris bini aadam marka afiris gaar ahaan si bini aadamka marka afiris male-ka x y leeyihiin iyagana sidaas camal waa female-koodana x waa kana sidaas camal iyagana marka sidaas camal weeyaan waan arki doonaa gadaalan ku arki doonaa man basharka marka fruit fly-ga 8 iyo 4 ay kala yihiin man bini aadam basharka bini aadamka waxa waa 46 23 tomato yaanyada 24 12 pineapple tufaaxa pineapple cananaaska waa pineapple konton 25 apple tufaaxa 34 17 34 wili way sii socdaan waa kana jadwal badan idu qayb badan waaye idu soo qoray rice breeze-ka 12 6 haye yaa ku saxo garden beer digirta jardiinka garden beer waxa loo yaqaanaa digirta jardiinka loo yaqaana waa 14 7 haye b shinida b midda dhidigta waliba loo yaqaana b shinida gaar ahaan dhammaan aan dhaha b dhidigta mid gooni ay leedahay cafan b shinida guud ahaan ayaa loo yaqaana 32 16 horse faraska 64 32 chicken waa maxay digaaga doorada guud ahaan isku qabo waxay leedahay 78 39 labo qayb 39 waa butterfly waxa waay balanbaalisada waxayaan yar oo biibiba Soomaa waa ka waran kuma xirno kromosomyada tiradooda kuma xirna xayawaanka dhumucdiisa kuma xirna xayawaan walba asagoo xayaata butterfly bini aadamka marka fiirsan ama xayawaano badan oo ka waaweyn markaan fiirino ay ka badan tahay iyadoo ka dhumuc yar butterfly balanbaalisada laha waa ka marka 380 190 waa inta midka ugu badan waa hadda intaan ka arkayn halkan dog eeygu 78 39 waa yahay donkey dameerka 62 31 donkey ugu dhawaaq 62 31 elephant maroodiga 56 28 haye gorilla ama jambensis waa la karay daanyeerka weeyaane 48 24 rabbit bakaylaha 44 22 cat bisada 38 earthworm waa maxay goryaanka dhulka laga hela waa earthworm goryaanka dhulka laga helo oo caadiga ah waa 36 18 snail xaaxeey waa la yaqaanaa waa bahal internetka geli hadaad fahmi garin xaaxeeya laha xaaxeeyada markaan fiirino Soomaalida qaar magacay kale u yaqaan laakiin ana xaaxeeyaan hadda u aqaana waa bahal qolof adag leh waaye marka laga hadlaayana skeletal waxay leedahay external skeleton ay leedahay marka laga hadlayo biology waa ku aragnayba snail allah marka internet geli hadii ay ku dhibto fahmi weyso xayawaankan waa arkaysa sawirkiisa snail xaaxeeyada allah 24 12 waayahay focus waxa waa duucada 36 18 frog raha 26 18 house fly waa tacsiir guriga caadi bibiibo tacsiir guriyaha caadi bibiiso ma taqaanaan kaasoo waxa waa asagana 12 6 waay water fly tacsiga biyaha ku bibiiba 168 way kala duwan iyaga kala duwan sinjiye kala duwan ah tacsigan waa sinji kala duwan kan waa sinji kala duwan kii kale soo qaadan dhammaan sinjiye kala duwan grasshopper ayaxa waa 14 onion basalka waa 16 iyo 8 waa 16 iyo 8 waa waayo halkaas marka waxaan ugu soo bixinaa tirada kromosomyada ay qaadan karaan guud ahaan noolayaashu ayaan halkaas ugu soo bixinaa waayahay types of chromosomes noocyada ay yeelan karaan kromosomyada types of chromosomes waxa way noocyada ay yeelan karaan kromosomyada tan waa muhiim idin tahay sawiradan wax badan idiga anfacayaan igana fiiriya haye waxa jira 4 types 4 nooc of chromosomes ee kromosomyada kuwaasoo divided waa la qaybi based on waxaan lagu saleeyay qaybintan tan ah the position of the centrome meesha iska qabsanayaan
meesha position meesha of the centrome iska qabsanayaan ayaa lagu salay qaybinta tan ah kow telocentric waxaa loo jeedaa labada chromatid ee chromosome uu leeyahay kan waa chromatid markaan fiirino kan waa chromatid labada chromatid labada xirkood ee chromosome uu leeyahay markay kor iska qabsadaan waxaa loo yaqaanaa telocentric sida sawirkan aad ka aragtaan haye kan kale maxaa waaye acrocentric waxaa waaye meel kor agteeda ah kor meesha kor agteeda inay iska qabsadaan agteeda waa acrocentric kor in meesha kor agteeda iska qabsadaan waana kana qaabkan tusaalahan haye sub tan maxaa waa idana aan firino submetacentric xoogaa centric waa maxay centric meesha dhexda wax ka hor meel ka horeysa inay iska qabsadaan sub waa maxay submeta waa maxay submetacentric meesha dhexe centric waa meesha iska qabsanayaan meesha dhexe xoogaa meel ka hooseysa meel ka koreyso inay iska qabsadaan submetacentriga loo yaqaana waana kana meesha dhexda intee marka meeshan metacentriga loo yaqaana meeshan waxaa sub ka hooseysa intee ka hooseysa meeshii dhexday ka hooseysa markaa fiiriso meesha dhexda waatana markaa fiiriso way ka hooseysaa meesha dhexda hoosteeda inay waxyar iska qabsadaan kaasaa loo yaqaana metacentricna waxaa waaye dhexda inay iska qabsadaan marka su-aasha weydiid mudan waxaa waaye kromosomyada 4 nuucba waa la arkay midka laakiin noolyaasha ugu badan ay leeyihiin ka waay metacentric waa annaga xataa midkan ayaa leenahay oo metacentric ah oo dhexda iska qabsanaya qaabka isku yaala inta markaa fiiriso waa chromatid kan markaa fiiriso waa chromatid kan markaa fiiriso waa chromatid kan markaa fiiriso waa chromatid 4 chromatid oo kaliya iska sameeysan yahay 4 chromatid ayuu kaliya iska sameeysan markaa fiiriso chromatid waa marka 2 chromatids marka la hayo saas waay kan waa chromatid markaa fiiriso chromatid waay kanna waa chromatid kale waa lugaha isdhaafsan soo ma jeedid marka kan markaan fiiriso centromer yaa wax kan hadii uu noqonay x ka camal marka uu qorayo centromer uu noqonay halkan waxay noqonaysaa centromer guntinta iska qabsadeen loo yaqaan centromer meeshaas waxay noqonaysaa centromer guntinta iska qabsan halkaa kan markaa fiiriso waa qayb kan markaa fiiriso waa qayb kan markaa fiiriso waa qayb centromer taas loo yaqaan guntintaas iska qabsadeen ayaa waxa loo yaqaanaa centromer loo yaqaanaa waayahay waxay nooga xiga 10 first law of heredity xeerka koowaad ee dhaxalka waa 10 aad u xiiso badan kaligiisana in 10 laga mudan waaye halkaas ay noo joogto walaalayaal insha Allah waxaan ku arki doonaa qaybo badan oo muhiim ah ayaan ku arki doonaa iyo Mendel sababaha soo dejisay inuu ku guuleysto cilmiga kan ah genetics ayaan ku falanqeyn doonaa aad iyo aad u mahadsantii walaalayaal wabillahi tawfiiq